بسم الله الرحمن الرحيم ميشان نغلا صوتان وكانال كايغلونكيد مانتي وحينو كهدلينا maxay tahay muhiimadda kalsoonida dhibaatooyinka keenta kalsooni darada muhiimadda kalsoonida u leedahay nafta haddaba maanta waxaynu ka hadlaynaa barnaamijkaasi number 1 aynu ku bilowno waa maxay kalsoonidu 1 in uu qofka naftiisa ka dhaadhiciyo kolka horeba in aanu waxba qaban karin number 2 in uu iska dhaadhiciyo in uu yahay qof liita oo aan dadka la jaanqaadi karin number 3 in uu noqdo qof baqa soo bandhigada fikirkiisa number 4 in uu ka baqa ka jawaabista su'aalaha uu garanayo number 5 in uu hamigiisa ka tanaasulo isagoo ka baqaya guuldaro ku timaadida number 6 wuxuu ka baqa guuldarada taas oo keenta in uusan isbeddel ku samayn iyo horumarinta naftiisa waxaan u gudbaynaa dhanka labaad ee noo ahaa dhibaatooyinka keena guuldarada dhaca maskaxda iyo isku dhacya dhanka fikirka aqoon la'aanta ilowga badan iyo guuldaro shaqo caasida fara badan iyo alle ka cabsi la'aanta qofka oo siyaada firfircooni la'aanta iyo dhaxgal humida bulshada waxaan u gudbaynaa qaybtii ahayd muhiimadda kalsoonida u leedahay nafta waxay qofka dhaxalsiisaa dhaqamo toosan lana jaanqaadaan xaaladaha ku hareeraysan noloshiisa ka ilaalisa dhaqamada cadaawadda iyo aargoosiga qofka naftiisa ku kalsoon wuxuu awood u heli karaa inuu helo khibrad nololeed barashada dhaqamo iyo xirfad iyo inuu si fudud u guulaysto kana dheeraado guuldarada kalsoonidu naftu waxay qofka dhaxalsiisaa aragtiyo shaqo howlkarnimo iyo qaababkiisa waxqabad barnaamijkeennii oo aan ugu hadlaynay maxay tahay kalsoonidu meeshan ayaynu ku soo gabagabaynaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat